nolosha ardaynimadu aad iyo aad ayay iskaga dhib badan tahay, waxayna ka bilaabantaa marxalad adag. Waxay ka bilaabantaa marxalad aanad garanaynin asxaabta kula galaaska, maadooyinka lagu dhigi doono iyo macallimiinta kuu dhigi doona. Waxay ka bilaabantaa marxalad aanad garanaynin maadada aad ku wanaagsanaan doonto, taad ku liidan doonto iyo taad ku dhici doonto amaba aad ku saaqidi doonto. Waxay ka bilaabantaa deegaan aan ku soo dhaweynaynin marka hore, deegaan aan awooddaada carinaynin ama aan ku tusaynin waxaad ku wanaagsan tahay. Waxay ku bilaabantaa deegaan run ahaantii kugu wada cusub, isla markaana ay adag tahay sidaad ula falgasho ama ula qabsato. Balse muddo yar kadib waad la qabsataa, waxaad la qabsataa macallimiintaada, waxaad la qabsataa maadooyinka aad qaadanayso, waxaanad kala saartaa maadada aad ku wanaagsan tahay iyo taad ku xun tahay. Waxaa laga yaabaa in aad imtixaan gasho, waxaa laga yaabaa imtixaankaasi in maadooyinka qaar aad ku dhacdo ama darajadii lagaa rabay aad ku guuldaraysan weydo. Macallimiinteena inta ugu badan marka ay imtixaanadu soo dhawaadaan waxay nagu dhiirigeliyaan inaynu grades fiican ama darajo fiican keeno. Halka keena darajo fiican keena waayaan u naqaano inuu yahay saaqid, qof nolosha ka dhacay, isla markaana aan noloshiisa ku guulaysan karin. Waxaa laga yaabaa macallinkaagu inuu kugula dardaarmo, kugula taliyo, isla markaana kugu dhiirigeliyo markasta inaad ku dadaasho maadooyinka akhrintooda si aad grade fiican ama markas fiican ama darajo fiican u keento. Darajadaasina ay keeni karto inaad nolosha iyo mustaqbalka ku guulaysato, shaqo fiican heli karto, isla markaasina aad lacag badan oo aad u fiican heli karto, xafiis, maamuus iyo darajo fiican aad ku keeni karto. Sababtoo ah imtixaankii ayaad ku baastay, waxaanad ku guulaysatay darajadii lagaa rabay. Halka keena ku guuldaraysta ama ku dhaca ama ku fashilma imtixaanada la qaadayo macallimiinta qaar amaba waalidkeenu aanay aaminsanayn inuu nolosha ku guulaysanayo. Waxaynu nidhaahnaa hebel markis xun ama markis liita ayuu keenay, waxaanu ku guuldaraystay noloshii, taasina waxay keeni kartaa inuu saaqido. Balse laga bilaabo maanta waxaan kuu sheegayaa inaanu jirin qof la yidhaahdo saaqid. Qof kasta waa genius, qof kasta waa cabqari. Markiska iyo imtixaanka darajada aad ka keenaysaa kuma go'aamin karaan, isla markaana ma sheegi karaan shakhsiyadaada dhabta. Ma go'aamin karaan nolosha waxa aad ka keeni doonto, ma go'aamin karaan shaqada aad heli doonto, mana go'aamin karaan qofka aad noqonayso mustaqbalka dhow. Imtixaanada way wanaagsan inaynu galno, imtixaanada way wanaagsantahay inaan darajo fiican ka keenno, laakiin ma aha miqyaas ama cabir aynu ku cabiri karno qofka aad noqonayso. Darajada aad keentaa ma go'aamin karto shakhsiyadda aad noqonayso mustaqbalka dhow. Balse waxay halbeeg u tahay wixii lagu dhigay ee muddada gaaban ma soo celin kartaa mise ma soo celin kartid. Waxaa laga yaabaa inaanad markiska maadista ku fiicnayn, waxaa laga yaabaa inaanad carabiga ku fiicnayn, waxaa laga yaabaa inaanad tarbiyada ku fiicnayn, waxaa laga yaabaa qaarkiin inaanay juqraafiga ku fiicnayn, laakiin ma odhan karno waa saaqidiin oo nolosha kuma fiicna. Waxay yihiin ayaaba iska yar, ma odhan karno maadaama oo ay markis liita keeneen den nolosha waxba kama aha. Waxaa laga yaabaa inaad maadista ku fiicnayn balse aad physics-ka ku fiican tahay. Waxaa laga yaabaa inaad biology-ga ku fiicnayn balse aad chemistry-ga ku fiican tahay. Waxaa laga yaabaa inaanad engineering noqoto ood guryo dhista doonaynin, balse inaad dhakhtar noqoto oo aad bini'aadanka badbaadiso aad jeceshahay. Waxaa laga yaabaa inaad artiska ku fiican tahay, waxaa laga yaabaa inaad xirfadda qoraalka iyo hal abuurnimada ku fiican tahay. Marka haddii aad xisaabta ku fiicnaan weydo, macnaheedu maaha waxba kuma fiicnid, balse waxaanan carinin ama aanan tijaabinin awoodda aad u leedahay waxaad ku fiican tahay. Arday kasta waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo fursad uu ku tijaabiyo kuna soo bandhigo waxa uu ku fiican yahay. Deegaanka ayay tahay inay saacidaan, waalidka ayay tahay inay saacidaan, macallimiinta ayay tahay inay saacidaan oo ay gargaaraan, isla markaasina ay cariyaan si uu soo bandhigi karo waxa uu ku fiican yahay. Hibadiisa waxa ah ma jiro qof bilaa hibo ah adduunka. Qof kastaa hibo gaara oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala u hadiyeeyey ayaa jira. Hibadaasna waxa uu ku helayaa ama ku gaarayaa marka uu helo deegaan iyo dad ku cariya, isla markaasina ka keena oo
ka soo saara hibadaas uu jecel yahay. fursad lamida ayaa uu leeyahay qof kasta in loo siiyo hibadiisa soo bandhigadeeda. fideogan ama muuqaalka yara kooban waxa aan kugula talinayaa oo aan kugu soo gudbinayaa waxa weeyaan in haddii aad maado ku liidato kamida maadooyinka aad dhigato ama jaamacad ha ahaato ama dugsi sare ha ahaato ama dugsi hoose ha ahaato aanay go'aaminin shakhsiyadaada dhabta ah. imtixaanada lagu soo dhejinayaa waa inaanay noqonin kuwo aad ku go'aan qaadato. imtixaanada lagu soo dhejinayaa waa inaanay noqonin kuwo haddii ay hooseeyaan ay u aaminto inaad nolosha hooseynayso ama mustaqbalka dambe aad hooseynayso. adduunyada waxaa ka taliya ama soo maray ama taajiriinka ah ama qaniga ah ama gebi waa bini'aadan laga yaabo amaba xaqiiqada dhabta ay tahay in markoodii hore aanay markas fiican keeni jirin. soo qaada tusaale nool, tusaale ahaan Bill Gates, tusaale ahaan Mark Zuckerberg, ninka iskale Facebooka, tusaale ahaan Jack Ma. dhammaantood waxay ku fiilgaroobeen oo ay ku dhaceen jaamacadaha ugu waaweyn adduunku inay qaataan oo ay arday xataa ka noqdaan. maantana waa billionaires. Bill Gates ayaa waxa uu leeyahay odhaah caana, odhaahdaasi oo odhanaysa anigu waxaan ku fiilgaroobay ugu yaraan 10 maado waqtigii aan jaamacadda dhiganayay. saaxiibkay oo isaguna 10 maado ku baasay hadda waa injineer shirkadda software u shaqeeya, aniguna waxaan ahay ownerka shirkadda software. taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ku fiilgarowdo maadooyin kamida maadooyinka aad ku dhigato iskuulka ama jaamacadda macnaheedu maaha in mustaqbalkaaga ay ku aaminayaan. adigu waxaad u baahantahay inaanad isdhiganin, waxaad u baahantahay inaad degdeg u hesho hibadaada iyo hiwaayadaada, waxaad u baahantahay inaad degdeg u hesho halka aad ku fiican tahay si aad degdeg uga midho dhalin karto. ishel, is aqoonso, isla markaasina ka gungaadh xaqiiqada dhabta ah ee ay naftaadu jeceshahay. waxa aad ku firfircoon tahay ee aad waqtigaaga inta ugu badan ku qaadato, taas ayaanad kaga faa'iideyn kartaa. inta aad yar tahay eed waqtiga haysato, eed jaaniska haysato, eed enerjiga iyo tamarta u hayso, hel waxa aad ku fiican tahay. waxaa laga yaabaa muddo yaroo dhow inaad noqon karto mulkiile leh shirkada ganacsi oo loo shaqeeyo halkii aad loo shaqeeyo ka noqon lahayd. inta ugu badanna waxaa la dhiirigelinaya waxa weeyaan inaad adigu shakhsiyan u tijaabiso awooddaadaasna ay keento inaad adigu lahaansho ganacsi aad samaysan karto halkii aad noloshaada dhan ku xidhi lahayd oo laga faa'iidaysan lahaa aqoontaada. uga faa'iidee ganacsigaaga dhabta, uga faa'iidee noloshaada, isla markaana degdeg u hel waxaad ku wanaagsan tahay. cari oo naftaada cari oo soo hel waxaad ku wanaagsan tahay. la saaxiib dadka aad filayso inay ehelka u yihiin waxaad ku wanaagsan tahay. kaag dhawow dadka ku carinaya, ku dhiirigelinaya, isla markaasina mar walba ku dardargelinaya ee aad u haysato ama aamini karto ama aad ka arki karto inay kaa horeeyaan oo ay ku tijaabinayaan mar kasta, isla markaana ay had iyo jeer mashaakil iyo problems aanad weli xalinin ay kuu diri karayaan. imtixaanka oo aad ku guuldaraysataa macnaheedu maaha inaad nolosha ku guuldaraysatay. ha eegin markiska aad ka keenayso imtixaanada, waa miqyaas yar oo muddo yaroo kooban lagaaga baahan yahay inaad gaadho, balse maaha nolosha dhan dhammaanteed inaad ka wada dhacayso. inta badanna iskuulladeena ama jaamacadaheenu waxay u design garayseen ama u qaabaysan yihiin qaab ah inuu ardaygu hadduu F qaato macnaheeda ay tahay waxba kuma wanaagsan. maadada uu dhiganaya hadduu F qaato gebigiisaba waa la niyad jebinayaa. waxaa la leeyahay waad dhacday, waad ku faylgarowday, waxba ma tihid. maya maaha sidaas, maaha run ahaanti sidaas. waxaad tahay qof nool, waxaad tahay qof macno leh. ilaahay baa ku karaamiyey subxaana watacaala oo kaa dhigay qof ka duwan dhammaan noolaha kale ilaahay subxaana watacaala abuuray. waxaa kugu kaydsan energy iyo awood aad u leedahay inaad isbeddel ka keeni karto caalamkan aad ku nooshahay. dhimo adiga oo macno leh, isla markaana ishelay oo hiwaayadaada soo xaqiijiyey, isla markaana ka guungaadhay. waa fariinta uu sido muuqaalkeena kooban. haddii aad ka heshay like saar, lana wadaag asxaabtaada. waa inooyo muuqaalka dambe biidnillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.